السلام عليكم وعليكم السلام أصحابتك kusoo dhawaada muuqaal cusub maanta waxaa sameynaynaa anigii xaajigeyga xalwo ah inaba caadi ahaanin waa ujeedaan muuqaalkeeda indhahay kaa cajabinaysaabo sidoo kale waxaan sameynaynaa macmacaan yar oo aan ka sameyn doono qumbe sidaan ayuuna kusoo baxay qeybta dambe fiidiyowga ayaa ku arki doontaan sidaa u sameeyey macmacaankan inaba caadi maaha waa ka heli doontaan soo dhawaada asxaabta hadda waxaa bilaawanaynaa xalwadeeni marka hore waxaa u baahanahna ama waxaan ka sameynaynaa xalwada 10 koob oo sokor ah waxaan ku dara 10 koob oo biyo ah qiyaas fiican waaye ka dhumin sidoo kale waxaa ku dareynaa 2 koob oo waraanga iyo 2 koob oo biyo isku qasay waxaa ku darayaa kalarka lagu darsado bariiska 2 kalar oo kala nooc ah sidoo kale caleen ayaa isticmaalay oo waxaan ku daray sokorta iyo sidoo kaleeto biyaha marka 2 koob oo biyo iyo 2 koob waraanga halkan igu jiro si fiican isku qasaya si fiican kadib waa isku soo dara hadda biyihii sokortii iyo sidoo kale waraangadii iyo kalarkii biyaha kulli waxay isku wada noqdeen 12 koob oo biyo ah sidoo kale 10 koob oo sokor ah iyo 2 koob oo waraanga ah subag iyo saliid labadaba waa isticmaalnay laakiin subaga aad u badnaa saliidda wax yar aheyd marka hore ku bilaaway kadibna subaga ayaa gadaal uga dardaraya wax yar markastoo adkaato wax yar ku dareynay sidoo kale jooska iyo heelkana waxaan sameynay 2 jeer ama 3 jeer ayaa u kala qaybinay markuu dhexdhexaad camal uu kariska maraya ku bilaaway ilaa aan ka dhameynayna waa ku dareynay maasha Allah xalwo cajiib ah oo inaba caadi ahayn qurux badan macaan badan ee ku soo baxday hadda waa kana qaybta ugu dambeysay mareysa saliidii banaanka ee keentay xalwadaada inay karsanto waxaa ku ogaanay saliidii soo tufaysaa sidoo kale digsigana way soo daynaysaa xumbo camalna way noqonee haddii xalwadaada qiyaasteeda aad u fiican tahay iyo sidoo kale digsiga ku karinaysana digsi adag uu yahay walaaqistana aa ku wada ilaa bilowga ilaa dhamaadkeeda xalwo maasha Allah qurux badan oo macaan badan oo kaala araga ku soo bixayso marka waa kaas xalwadaada hadii markasta aad rabtid inay macaan ku noqoto ha ka joojin inaa markasta ay walaaqdid marka hadda waa kana maasha Allah waa soo gedineynaa sisin iyo loos midna kuma darin sidaan ayaa anaga ku rabnaa adinka daarabtaan laakiin loos ama sisin waa isticmaali kartaan maasha Allah waxaa sugeynaa intay nooga soo qabowdo kadibna waa soo jarjareynaa waa idin tusinaa sidee noqotay maasha Allah hadda waa kana xalwadeena qurux jileec macaan lagama sheekay karo weli way kulushahay maasha Allah sidaan ku soo baxday tijaabi waa ka heli doontaan hadii ay kugu badan tahay 10 koob oo sokor 5 koob oo sokor aad tijaabin kartaa sida adiga aad rabtid hadii aad markii kugu horeysay ee taa waxa ku fiican inaa nus kiilo ama kiilo aad ku baratid marka hadda waa kana saliidii dhan waa ka soo dhameeyay sidaan ay ku soo baxday qatar maasha Allah waa maasantiin asxaabta hadda waxaan tusinayaa macmacaankii kale sida uu sameeyay macmacaankaas waxaan ka sameeyay qumbaha badana Soomaalida sida u sameystaan waa wada naqaana laakiin si ka duwan oo maasha Allah u sameyn doona ila socda qumbaha horta waa kana hadda waa dubay waxaan galiyay foornada si fiican oo maasha Allah qatarna wuu ku soo baxay dhadhankiisana waa arki doontaan qof kastoo tijaabiye ayaa ka sheekeyn karo marka hadda qumbiya bilaawinayna waxaan ka sameeyay qumbaha dadka sida u sameeyaan waa taqaana laakiin si kala u sameyn doona oo macaan badan 2 xabo oo kuna isticmaalaya adi qumbaha haysatid ku xiranta haduu qumbaha badan yahay ukuntu waa ka badsanay haduu qumbaha yar yahay sidoo kale 2 bac oo yar oo qumba ayaa isticmaalo qumbaha waa kan shiidan hadda sokor ku soo dir sokorta wax yar ah isticmaalay koob halfkiisa maadaama macmacaan badan iida la isticmaalayo sokorta badan waa saasaan u yareeyay sidaas marka ukun iyo sokor bisa halkaas iigu jirto waxaa ku soo dari doona qumbihii oo qumbaha shiidan oo ku jiro bacaha saddexdaas shay aan isticmaalo wax kale kuma darin carfiso kuma darin saliid kuma darin cusbo kuma darin wax kale kuma darin intaas waaye kaala arag hadda waxaan sameynaynaa waa ku qasayaa marka qumbaha hadii uu qumba yar uu yahay marka hore sokorta iyo isku dar ukunta markuu ku dhalaa yani isku dartid si fiican u walaaqdid qumbaha kiskis ugu dariyo qumbaha markaasi haduu kaaga yaraado waxay noqonaysaa qash waa inuu sidaa camal uu ku noqdo hadda waxa sameeynaa waa couscousa sidii loo couscouso maxaa la dhahaa buskudka ama maxaa la dhahaa cunka camala u soo couscousay waa kana hadda waa foornadii diyaar 200 iyo shidana gelinaya sidaan ku soo bax quruxda badan wuu soo gaduutay macaanka lagama sheekay kara maasha Allah ciyaalkay aad uga helan adinkana waa ka heli doontaan qumbaha oo sokorta lagu dhalaalinayo oo dibka lagu karinayo uu ka macaan badan yahay